runtii shalay waxa meeshaas ka dhacay ama qaraxii shalay ka dhacay hotel Elite waxa uu ahaa dhacdo aad xanuun u badan oo runtii marka la fiiriyo sida iyo xajmiga inta uu la ekaa qaraxa meeshaas ka dhacay waxay ahayd abaarihii 4tii iyo barkii galabnimo qiyaastii annagoo iska faraxsan oo qof walba maaragtay dadku ay iska fadhiyaan oo shaaha ay cabayaan dadku shaaha ay maaragtay isu diyaarinayaan qaarkood ayaa waxaa mar kaliya ay isbedeshay jawigii waxaa dhacay qarax aad u weyn maaragtay qaraxii markii uu dhacay wax walba waxaa maaragtay isku dhexyaacaya yimid qof walba waxa uu bilaabay maaragtay inuu u cararo dadku ma garan karin meeshay u cararayaan dadka maaragtay iska hor imaanayeen jahwareer badanaa ka dhacay qiiq madow ayaa cirkii qabsaday wax maaragtay sawaxankii ayaa maaragtay waxaa isla markiiba bilowday markaa xabado xoog leh oo dhinac walba ka dhacay markaas xabaduhuna laba dhinac ay u badnaayeen oo aad ay uga dhacayeen xabadihii markii ay bilowdeen oo qof walba maaragtay uu wareeray ayaa waxaan anigu wada fadhinay nin saaxiibkay ahaa oo la yidhahdo cabdirasaaq allahu naxariistay oon maanta soo aasnay cabdirasaaq cabdulaahi oo ahaa nin aad iigu weynaa oo saaxiib ahayn oo iga soo waday weliba gurigayga markii qaraxu uu dhacay waxaa meeshii maaragtay uu cabdirasaaqii la joogay kursigii horteena yaalay maaragtay meeshii ka haaday dhinaca maaragtay badda qof walbana maaragtay jahwareerkaasaa dhacay cabdirasaaq anigu waxaan isku dayay inaan hakanno oon hubinno waxa meesha dhacay laakiin nasiib darro cabdirasaaq ma uusan hubinin horey ayuu ka booday oo maaragtay nin dhalinyaro oo iga daayarna wuu ahaa markii uu booday nasiib darro waxa uu u cararay dhinacii xabaddu ay naga xigtay meeshaasuu maaragtay xabaddii ay ku haleeshay xabadna waxay kaga dhacday dhinaca dambe ee dhabarka oo dhinaca wadnaha ka soo baxday oo gadaala laga toogtay lugtana way kaga dhacday marka xabadihii ayuu ku dhintay qaraxa haba yaraatay wax nagama soo gaarin anigana ilaah baa iga badbaadiyey waxaan isku dayay inaan marka hore hubiyo gidaarkan maaragtay isu diyaariyey inaan ka boodo waxaan fiiriyey meesha xabaddu ay u yar tahay markii aan dhulka u degay haddana maanan cararin xoogaa yaraan hakaday funaanad aan watay oo cagaarnayda waxaan is idhi kalarkeeda iyo amay dadku soo jiidanaysaa marka funaanadii iska siibay markaasaan dhinaca xeebta u cararay waxay ahayd maaragtay wax aan qiyaasi kara ma wadnahayga wuxuu u garaacayay sida gurbaanka oo kale luguhu way jaraynayeen waa garan kartaa qof maaragtay arrintaasoo kale u joogay marka nasiib darro saacado kadib markii aan maaragtay soo wareegtay oo aan anigu aan ogaaday inaan bad qabo waxaan raadiyey saaxiibkay waxaa la ii sheegay inuu dhaawacmay isbitaalkiyaan maaragtay haddana uga daba cararay sababta xataa gaari ma shaqaynaynin markaasoo kale cid dhaqaaqi kartaa ma jirto lugaan ku cararay isbitaalkii markii aan tagay oo meeshii tagayna waxaa la ii sheegay in allah u naxariistay cabdirasaaq ay nafta ka baxday sidaasna uu ku geeriyooday marka wuxuu ka mid ahaa 20 qofee shalay ku dhintay meeshaas maaragtay dhacdadii ka dhacday runtii horta qofka marka uu qarax ku dhaco waxa uu dareemayaa maaragtay jahwareer iyo jug xanuun shalay ima haynin xalay ima haynin laakiin hadda korkii oo dhan ay xanuunaya meelihii aan iska soo tuuray iyo cararkii iyo wax walba waxaana maaragtay qofku uu dareemayaa tiiraanyo marka weliba qof saaxiibka uu maaragtay meeshaa ku baxo oo aad isla socoteen gurigaaga kaa soo waday saaxiibka ahaana waa garan kartaa dhibaatada iyo xanuunka ay leedahay waxaa intaas dheer maaragtay runtii aniga hadda iguma horeyn qarax aan sidan oo kale ah waa qaraxii afraad ee aan goobjoog u ahay waxaa jiray dhowr qarax oo kale oo maaragtay qaarkoodna aan ku dhaawacmo laba maaragtay qaraxsi ayaa maaragtay si darna ugu dhaawacmay qaraxna kii u dambeeyey Maka al-Mukarrama ilaah baa iga badbaadiyey qaraxana waa maaragtay kii hadda ilaahay waxba iguma gaarsiinin oo haba yaraatay wax soo gaaray ma jiraan laakiin waxaa jiray laba qarax oo midna uu dhacay 2013kii UNDP horteeda lagu weeraray ciidamo amisoma ninkii isqarxiyay ayaa maaragtay gaarigii ku soo dul dhacay isagoo maaragtay gaarigii uu isku yaraaday miraayihii soo shaqay askarta booliska ay yimid meeshana qof ku jira nool la isma lahayn laakiin haddana waa ilaahay iga badbaadi xataa dhaawac ay soo gaaray dhabarkaas uu gadaal iga soo gaaray iyo dhinaca hoose laakiin wax weyn oo soo gaaray ma jiraan isbitaalka la igay Madiina markaas waxaa kaloo jiray maaragtay oo dhibaatada ugu badnaa iga soo gaarto hadda haarahan korkeyga ka muuqda ay igu dhaceen qaraxii 2016kii ka dhacay January maaragtay 26keedii isla meesha shalay uu ka dhacay qaraxa meel agteeda ah oo liida seafood la yiraahdo oo 40 qof ay ku dhimatay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii halkaas ku dhaawacmay sida daran ugu dhaawacmay meesha waxaan oolay qiyaastii dhowr saacadood oo maaragtay laygu kor dagaalamayay anigoo dhiig baxaya oo indhaha xataa waxba ka arkin qaraxuna isaameeyay waa qiyaasi kartaa marka xaaladdu siday ahayd laakiin ilaaha isna iga badbaadiyey oo maaragtay caafimaad taam ahaan helay haddana waa qaraxii afraad
aan goobjoog u ahay marka waxay ka mid tahay meelaha xanuun kale markaad muddo joogto waxaad isleedahay magaalada xaaladdu waa hagaagtay ayaan markaan anagu bani aadan aan nahay 5 bilood 4 bilood 6 bilood markay xaaladda caadi noqoto waxaan bilaabaynaa bani aadan aan nahay inaan meelihii maaragtay dadku u badnaa meelihii shaaha inaan tagno haddana waxaan oo kala dhacaya marka wax nagu soo noqnoqday waaye waxaan maaragtay ilaahay uga baryaynaa inuu naga dulqaado laakiin dadka meesha ku dhintay oo dhan waxay ahaayeen dad innocent ah dad aan waxba galabsan oo maaragtay meesha u yimid qaarkoodna maaragtay masaajidka meesha ku yaal ay ku soo tukadeen qaarkood isu diyaarinayeen salaada maqrib wax dhibaato ama cid ka galabsadeen aanay jirin